مادان صدح يا صدن شير سبحان الله صدح يا صدن شير الحمد لله صدح يا صدن شير الله أكبر أذكارتها سوى أذكارت الدالك حتى قبل صبحي وحي توسيسا يضع في فرعون أو ما أنتو ننتي شقة قشيبة أنا هاي نشيطة بيتوسيسا سدا تاوبا بيستوى الإمام النسائي ساسو الباب حتى أقول لك تا محنكو هذا شقة يعمل كعروس قفا كشقة يا أذكارتها سيني وحوين تريسو أسماء بنت أبي بكر وعيتري كنت أخدم الزبير بن العوام خدمة البيت كله حديث كبخاري الزبير بن العوام باقى بأسماء وحان ننكي خدمة قريقة أو نمبان قبين تيرو كشقين تيري آياتري وحين هلكا وحبا صوص عمر ربينا تابطو دمركي قريه ولا قصاري جندر بالانسي وحلا إلها مدقات دمركي لوسو تشيدي حاجة دمان كلمة وحكا قديه دوناي إناد قريقاقا آمنتو كقناعدو ubadkaaga iyo aqalkaagu ku deeqo zawjkaaga iyo mas'uuliyadiisu ku deeqo waxa weeyaan waa shay muhiim ah Soomaalidu waxay ku mahmaada iimaan Allah uur buuxiya iimaanka Ilaahay buu ku siiyay diintu ha ku deeqdo baan leeyahay qofka muslimka ah oo qalbigaaga ha gasho radiyallahu an Jaabir ibn Abdullah markuu guursaday gabar Carmala ayaa rasuulku yiri maxaad guursatay Carmal maxaad gabar u guursan weyday gabadha dhowr ah bahay ka dhintay aniga ana reerka rag waa waxaan u guursaday gabadhaas inay guriga aad uga khidmayso gabdhaha u khidmayso timaha u fidho u tidicdo oo hagaajiso hooyo u noqoto waa mas'uuliyadda hooyada loogu talagalay iyo qofka dumara meel aan loogu talagelin baa loo wadaayo loogu durbaan tumaya oo aan shuqulkeedii aan shaqada waa la kala leeyahay imaam ibn Taymiyyah fataawiisa mujalladka fataawa al-kubra جلد كافر يصدنا سبحانه سجاشن يافر وحوليه وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه علماء ضد بعشرته إنه يقول كخد ما يصو قفك الضمرها يحال كاسي كهد لين قولك الراجحة وإن يقول كيسا نينك كخد ما يسا يؤبد كيسا يعنتديسا يعبتان كيسا فراش كيسا در كيسا يوحي لمي دي أوبد كيسا يولي وأنا أنت صحيحة بل رسولك صلى الله عليه وسلم وحبليه هي لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها إلهي ما بقى ما أنت يوم القيامة إلا حديث لكم ما إيجو قف ضمروا ننكيدي أنو مهد نقينين وهي لا تستغني عنه ذلك النسائي يدو عندنا أن ننكيدي كم أرمي كرينين أن محنكو إلى هذا أنو مهد نقينين وبيلا يو هجاتنا يا ومصروفا يا هذا أن قولي خدمة دي سي نرشي أن وحبا قبنين حلينا قودي إني براروك تالا ربايو كو براروكتو sidee ninkaaga ula noolaan lahayd ninkii qudhiisa waa la hadlo waxa la yiri qofka dumara feer qaloocan baa laga abuuray feedha qaloocan hadii aad istiraahdo toosina way jabaysaa jabniinkuna waa furiinkii ninkii wadigu isweydii see hadaba feer qaloocan ula dhaqmaysaa jawaabtu waa maxay kabkabo toosiso kabkabo wax qaloocan sidiisaba lamana togi karaa inuu waa jabaya sidaa ku hay iska kabkabo oo de marka sida aad u hadasho saasay u hadlaysaa rasuulka wuxuu yiri madaxa maanta aad la iga hayaa alimaamaha kamida Aishana waxay tiri madaxa ana la iga hayaa Aisha yada hortay dhiman lahayd intaan ku maydho oo si fiican kugu tukado oo ku kanfo baan si wacan ku aasila rasuulka Ilaahay waa ku fahmayaa bay tiri waxa doonaysaa inaad islaanka la guursato guriga soo geliso annaan ku dhaafaa doonaysaa bay tiri waxa lagu sheegayaa radiyallahu ta'ala anha wadaa sida markaad u hadasho saasay u hadlaysaa sida awgeed waxa lagu leeyahay adiga laftaadu qofka dumar ee aad qabto kabkabo oo cilcisho oo dhaqaalayso oo sida ragga hawla garnaqsan soo fadhiisan inta tidhaado sida ragga hawla garnaqsan waa isgar baranaysan oo isu taageelimaysan hadhow laakiin tawjiiha iyo nasaaxiida kala siinaysaa gabadhiina iyadana waa la hadlay oo waxa shariicadu tilmaantay inay fahanto sida ninkeeda ula noolaan lahayd oo shariicadu waa sheegtay walirijaali alayhinna daraja ragga dumarka daraja dheer الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات ولا ورمي رجع يا دمر كمسؤول كأه سيدا مدحوينه شعب كمسؤول جيهي أيا قفك دمر ننكيد مسؤول جيه ووحى إلهي ديرات كي وكلسيجي مصاريفتي وسيني مصروفكي ينولشي دقاله مسؤوليتي محنك لها ولها صدن أيا دنين كان يكقمية
gabadhii marka waxaa loo sheegayaa gabadha saalixada ee wanaagsan ee nafteeda ilaalisa ee ninkeeda maalkiisa ilaalisa ubadkiisa ilaalisa ee markuu maqan yahay xafido wax walba raggeeda ilaahay ateecda oo ninkeeda ateecda waxyaabaha khayrka ee jannada ay gabadhu ku helaysay kamid tahay wuxuu oran jiray Abdullah ibn Zubayr ibn Abbas al-muti'atu li azwajihinna waxaa loo jeedaa kuwa raggooda ateecaya gabadhii marka caynkaas ahayd ee ninkeeda ateecaysa rabbigeeda ateecaysa ee ninkeeda ateecaysa ee xifdinaysa ubadkiisa iyo nafteeda maqnaanshiisa iyo maalkiisa xifdinaysay gabadhaas sharcigu wuxuu amrayaa inay baraarugaasi yeelato gabadha muslimadda ah rasuulku waa tuulaha salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi nisaa'ukum min ahli aljannah dumarkiina ahlu jannaha ahi wa alwaduda alwaluda العاعود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمر كينا أهل تشنه وهي وحويان وتنكو الرجودة تشعليسية الرجودة أوبت كندا لا إن كذا أصو نقط كبدن إن كذا أصو نقط أصو هيته مركا أي كعريسيسو أنت يوتي ما ضو قعنتي السوق بطو gacanteeda sida ugu qabato tiraado raali iga noqo wallahi inaanan seexanayn ilaa raali iga noqoto waa taamid ahlu jannaha buu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi marka waxa la rabaa gabadhii inay ku baraarugto ninkeeda see ula noolaanaysa oo ninkaaga inaad waxa la rabaa u labisato isu qurxiso oo aad guriga markaa la joogtid diricii aad maanta dhan sanad iyo suugada iyo guriga kaga shaqaynaysa wax ku masaxaysa wax ku karinaysay